kusoo dhawaada daawadayaal wararka ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh waxaan idin hayaa warbixin ku saabsan Puntland oo xuduudaheeda ka mamnuucday in qof ajaanib ah oo aan haysan sharci Puntland ah oo san soo gali karin sidoo kale Puntland oo sheegtay in 72 saac soo socda ay isdiiwaan galiyaan dhammaan dadka ajaanibta ah ee ku sugan magaalooyinka Puntland intaan warbixinadan faahfaahsan kula wadaagin waxa ka codsanaya in YouTube-ka ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalkan la inoo saarto sidoo kale aan gambalelka farto si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ayaan halkan ku soo gudbino bayaan dheer oo ka soo baxay wasaaradda amniga dawladda Puntland ayaa lagu yiri wasaaradda amniga dawladda Puntland oo tixgelinaysa go'aanadii ku saabsanaa xakamaynta khataraha ajaanibta ee uu xalay soo saaray wasiirka amniga dawladda Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa sheegay in aysan gabi ahaanba xuduudaha Puntland soo gali karin dadka ajaanibta ah ee aan haysan shuruucda Puntland ama sharci ay ku soo galaaniin xuduudaha Puntland bayaankan ka soo baxay wasaaradda amniga dawladda Puntland oo uu warbaahinta la wadaagay agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamuud Xasan Maxamed ayaa lagu sheegay in aysan dhammaan xuduudaha Puntland soo gali karin ajaanibta sharci la'aanta ah isla markaasna tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda in ay go'aanada Puntland ka soo baxay ay jabiso sidoo kale bayaankan ayaa lagu yiri waxaan go'aansanay in dhammaan xuduudaha Puntland sida garoomada diyaaradaha kantaroolada iyo dekadaha midna aysan soo gali karin cid ama qof ajaanib ah oo aan ogolaansho ka haysan wasaaradda amniga dawladda Puntland iyo sidoo kale hay'adaha amniga ayuu yiri agaasimaha wasaaradda amniga dawladda Puntland oo warbaahinta u akhrinayay bayaankan ka soo baxay wasaaradda amniga dawladda Puntland waxa uu sidoo kale bayaankan ku yiri xukuumadda Puntland waxay sidoo kale amar ku siisay dhammaan cid kasta oo ay u shaqeeyaan dad ajaanib ah sida shirkadaha ganacsiga warshadaha xarumaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada in ay muddo 72 saac gudahood ah ay ku soo diiwaan galiyaan dadka ajaanibta ah ee u shaqeeya si loo aqoonsado in ay yihiin dad caadi ah oo diiwaan gashan oo aan ahayn dad falal amni darro ka wada Puntland waxa la farayaa in dhammaan cid kasta oo ajaanib dalka keenta ama soo galisa sida shirkadaha ganacsiga waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo xarumaha waxbarashada inay ku soo diiwaan galiyaan muddo 72 saac gudahooda si loo xaqiijiyo amnigooda sidoo kalena loo ogaado cidda mas'uuliyadooda qaadaysa ayuu yiri agaasimaha wasaaradda amniga dawladda Puntland wasaaradda ayaa sidoo kale ku wargelisay dhammaan mas'uuliyiinta hoteelada iyo goobaha la seexdo in muddo 24 saac gudahood ah ay dawladda u soo gudbiyaan cid kasta oo ku soo biirta si loo xaqiijiyo cidda ay yihiin iyo meelaha ay ka yimaadeen ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay wasaaradda amniga dawladda Puntland ayaa 24 saac la soo dhaafay waday howlgallo ka dhan ah dadka ajaanibta ah kuwaas oo ay ku sheegtay in ay lid ku yihiin ammaanka iyo nabadgelyada Puntland ayaa sheegtay in dadka ugu badan ee Daesh ka tirsan ay yihiin dad ajaanib ah sidoo kale dadka ugu badan ee falalka amniga lidiga ku ah ka wada magaalooyinka Puntland ay yihiin dad ajaanib ah sidaas darteedna loo beegsanayo qof walba oo ajaanib ah oo sifa sharci darro ah ku jooga deegaanada Puntland waa kaaga mahadcelinaynaa haddii aad halkan nala soo gaartay waxa ka codsanayna in YouTube-keena ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkan la inoo saarto sidoo kalena gambalelka furto ma maasantahay